warbaahinta caalamka arintani ka hadashay waxa kamida wargeyska The National ee ka soo baxa wadanka Imaaraadka Carabta telefishinka Al-Carabiya ee fadhigiisa ee wadanka Saudi Arabia dhanka wadanka Mareykankana waxa arintaasi soo hadal qaaday warbaahinta ABC iyo sidoo kale Fox News oo kamida kuwa loogu daawashada badan yahay wadanka Mareykanka sidoo kale waxa warbixin amuurtaasi la xiriira daabacay sidoo kale wakaalada wararka caalamiga ah ee Associated Press iyo wakaalada wararka wadanka Turkiga Anadolu ayaa kamid ah kuwa daabacay warbixinaha la xiriira meelmarinta baarlamaanka Soomaaliland ee ogolaadeen in xukuumadda madaxweyne Silaanyo ay wada xaajood la furtay wadanka Imaaraadka Carabta isla markaasina ay ka wada hadlaan arrimaha saldhigga military warbaahinta caalamka arintani ka faalootay ayaa marka la isku soo wada duuban nuxurkooda waxa ay baahiyeen jiritaanka arintani iyo in baarlamaanka Soomaaliland ay si wada jira cod aqlabiyada oo 144 coda ay ku ogolaadeen in Imaaraadka lagala xaajoon karo heshiiska ku saabsan ciidankiisu inay saldhig ka sameystaan xeebaha waqooyi ee magaalada Berbera warbaahintani fadhigood yahay bariga dhexe Yurub Mareykanka iyo Afrikaba ayaa waxay xuseen ujeedada saldhiggaasi inay tahay in lagula dagaalamo shiicada wadanka Yemen ee Xuutiyiinta oo xoog kula wareegay maamulkii wadanka Yemen isla markaasina dagaal kula jira wadamada Khaliijka Carabta ee ay hogaamiyaan Imaaraadka Carabta iyo Saudi Arabia sidoo kale warbaahintani ayaa waxay soo xigteen khudbadii madaxweyne Silaanyo uu ka horjeediyay baarlamaanka waxaana ay daabaceen madaxweyne Silaanyo hadaladiisii ahaa in saldhiggaasi laga heli doono shaqooyin iyo maalgelin muhiim ah iyo arinta ugu weyn oo ah Imaaraadku inuu ilaalin doono mashruuca malaayiinta dollar ku kacaya ee shirkadda DP World ay ku maalgelinayso dekedda magaalada Berbera oo ah dekedda ugu weyn Soomaaliland sidoo kale warbaahinta caalamka arintani ka hadlay ayaa waxay xuseen isla markaasina ay falanqeeyeen xaqiiqada dhanka nolosha ee ka jirta Soomaaliland waxaana ay sheegeen Soomaaliland inay tahay meel xasiloon muddo ka badan 25 sano isla markaasina si iskeeda ugu dhawaaqday inay Soomaaliya ka goday 1991 ha yeeshee ilaa iyo waqti xaadirkani aan beesha caalamka ka helin aqoonsi caalami ah dhanka kale wargeyska ka soo baxa bariga dhexe ee loo yaqaan Middle East Eye ayaa waxa uu sheegay in xaruntan ay noqonayso xaruntii labaad ee military ee dawladda Imaaraadka Carabtu ay ka hirgelisay geeska Afrika kadib markii baarlamaanka Soomaaliland ay meel mariyeen heshiiskaasi in la gali karo iyadoo hore ay dawladda Imaaraadka Carabtu dekedda loo yaqaan Casab ee wadanka Eritrea ay u deganayd waxaana intaasi ay ku sii dareen warbaahinta caalamku in dawladda Imaaraadka Carabtu bishii January ee sanadkani ay si rasmi ah Soomaaliland uga codsatay inay doonayso ciidankeeda halkaasi saldhig inay ka helaan iyadoo baahida ciidankaasina ay soo korodhay markii shirkadda DP World ay heshay ama ay ku guuleysatay inay maalgeliso dekedda magaalada